sidaad u arkayseen basaaka halkan waxaa isugu yimi madax ka tirsan golaha wasiirada amniga ciidamada BMBF waxayna ku saabsanayd incident xalay ka dhacay dekeda oo ahaa dooni idni la'aan ama amar la'aan dekeda kaga baxday ciidamada BMBF tuna ay xabadayeen arrinteedii ayaan u nimi inaanu baaro isla markaana aanu eegno ama aan soo inaynayno gaadiid kale dekeda ku jiray oo waqtigaas ku xidhnaa dekeda aanuna u sheegno waxaan dhacay inay ahayd waxaan iyaga iyo gaadiidkooda toonna waxyeelo u ahay inay ahayd dooni dekeda ka baxday amar la'aan oo ciidamadu xabadayeen in ay qalad ahayd oo aanu ka xunnahay inay ka dhacdo arrintaasi dekeda dadkii gaadiidleyda ahaa iyo dadkii wakiilada u ahaana waxna waan la kulano waa ka raaligelinay waxa kalena waa ka raaligelinaynaa dekedu waa meel badbaado ah sida caadiga ahayd bayna shaqadeedu u socotaa sida idinkuba hadda kusoo arkayseen incidentka xalay dhacayna waxaa mid gooni ah oo aan horey uga dhicin ama aan lagu aqoonin dekeda boosaasood si aanu dibdib ugu dhicinna guddi wasiirada ka tirsan iyo guddiga amnigu kulliga iyo qaraar cad baanu ka soo saari doonaa mas-uuliyad xumadii xalay ay muujiyeen ciidankaasi baaritaanna waa loo diray ciidankii sameeyey xalito xabadaha riday iyagoon amar haysan wasiir doonidu waxay ahayd waxay ka mid 5 dooniyood oo maandhow ciidanka badda ay keeneen boosaaso ma laba dooniyood iiraaniyiin waay marka ciidanka badda keenay ma iyaga ilaalinayay mise dekeda lagu soo wareejiyo oo waraaqoodii baad hayseen bal arrinta faahfaahin naga shan doonyaha shan ka mid oo ay soo qabteen ciidamada baddu warqadahoodii anagana la ku soo wareejiyey ganaaxii ay mutaysteen wixii ganaax mutaystay waa marinay wixii sharcigooda iyo nidaamkooda u hagaagsan yihiin waa u hagaagsan yihiin oo waa waxba lama ganaaxin laysanskoodii bay jididsadeen waana baxayaan wax dhibaato la kulmeen ma jiraanin labadan doonyood muddo badan bay yeeleen incidentkoodna keeskoodana gaar buu ahaa mid waa doonida xalay aanta ku baxday oo baxsatay midii kaleetana way joogtaa taa weli documentkeedii ma hayno wasaaradda kalluumaysiga tiri anaga hayna waana inagu soo wareejinayaan markii inagu soo wareejiyaan tallaabada ku habboon sharciga baan ka qaadayna haddaan nahay wasaaradda dekeda mudane wasiir waxaan ognahay doomahan markii lasoo qabto labadaba waxaa la sheegay inay yihiin doonyo dambiilayaala oo ay dembi galeen marka sidee bay ku dhacday in ay saarnaadaan shaqaalihii naaqudihii oo la sheegay inuu horay magaalada loogu saaray uu dib ugu soo laabto oo ciidankii oo goobjooga ay doonidu waqti intaa laga ku fikato ay hesho sidee bay ku dhacday wax faafeertaa ma ka hesheen walaal wixii qalada oo dhacay dib baan uga saxaynaa haddii uu qalad dhacay waa ku daba jirnaa waana go-aan adagna waa ka soo saaraynaa ilaa iminka anagu mas-uuliyadda doonyaha waxaanu qaadnaa dekeda markaan nahay markay doonida soo xirato dekeda lagu soo wareejiyo laakiin anagu documentigeeda ilaa hadda ma hayno saan idiin sheegay wasaaradda kalluumaysiga haysa waa nagu soo wareejinayaanin markaasaanu tallaabada ku habboon qaadaynaa ciidamadu inay doonidu baxsato waxyaabaha keiska lagu baarayo bay ka mid tahay doonida baxday oo amar la-aanta ku baxday iyaguna ay waardiyaa ka ahaayeen dowladdu tallaabada ku habboon bay ka qaadi doontaa ciddii falkaa geysatay sida aan warka ku hayno doonida nin soomaaliyeed baa soo iibsaday hase ahaatee wax goolo ama wax documentis ay leedahay oo la hayaa ma jirin nidaamka jiraana waxa weye doonida haddaad waddan dabadeed kasoo iibsatid waa inaad la timaada warqadahaas kusoo iibsatay oo soo maray maktabka hati alcadl soo maray chamber of commerce soo maray lawyer dabadeetana markaasaan anagu ku siinayna gool soomaaliya hadday dooni soomaaliya tahay hadday gool ajnabiya wadatana goolkeeda say wadataa baa lagu cashuuraa oo ay ku gudataa waajibkeeda doonida soomaali registeredka ay nidaam gooniya bay leedahay baxaarteedu waa inay soomaali tahay discount fiican baan u samaynaa dooni waddankeedii joogta hadday dooni ajnabi tahayna waxay leedahay brice laga qaado sicir bay bixiyaaniin dooni ajnabiyaana loo ictibaaraa waddanka markay soo galayso waa inay sifa sharciya kusoo gashaa markay ka baxaysana waa inay sifa sharciya kaga baxdaa waddanka marka shaqaalaha saaray Soomaaliya mise Iranian bay ogaalkaaga adiga aniga ogaalkayga waxaan qabaa dooni cusub bay ahayd taangar bayna ahayd
dadka saaraana waxay ahaayeen Iiraaniyiin oo lagalama wareegin. kiiskan waa markii ugu horeysay dekadu waa dekadaha ugu ammaanka badan East Africa. maxaa dadka u sheegaysaa in yani xabad gudaheeda ka dhacay iyadoo weligeed hore loogu arkay? maxaa dadweynaha u sheegaysaa wixii dhacay qalad bay ku dhaceen, mas-uuliyaddeedana dad bay saaran tahay, waxay saaran tahay ciidankii ilaalinaya doonida oo baa qaladkaa leh. BNBF-ta iyadana waa la saxayaa, dib dambena u dhici mayso. wixii dekeda soo gala oo gaadiida hadda ka dambeeya waxaa booliiska dekeda ayaa la wareegi doona. ciidanka BNBF-tuna hawshoodu waa qeexayna, waxay noqon doontaa wixii dibadda laga soo qabanayo iyo wixii emergency inaanu isticmaalno oo keliya, laakiin hawl maalmeedka dekeda waxaa mas-uul ka ah ciidanka booliiska dekeda. mudane wasiir aan kaa dhex galo, hadalka hore wuxuu ahaa aad ku hadlaysay in doonyahan aan idinku soo wareejin dukumentiyadooda. taa wasaaradda dekedaha tahay mas-uulkeedii, dekedaha adiga mas-uulka wasaaradda dekeda oo dhan. sababtaas markaan maan la oran karin maadaama wasaaradda kalluumaysiga ay hadda weli dukumentiyada hayso idinka soo wareejin inay mas-uuliyaddan aad u hooseyso. walaal way jirtaa, dekeda lama keeni karo anagu gaadaadeeda aanan dokumentigooda hayn. haddaanu dokumenti lahayn gaadadkaasu ninka wata baan xidhnaa ilaa laga keenayo dokumentigii. gaarigii circulacione la-aan ma socon karo. dokumentiga goolka doonidu waa circulacione baabuurka oo kaleeto, waa inuu annaga noogu jira khasnada. markii dowladaha markii naloo keeno hadduu kalluumaysi yahay kalluumaysigaan u diraa, licensekiibu soo qaataa. markuu licensekeena tuso waana nagu tugo hadduu bixi karaa. waxaanu samaynaa manifest, goolkiisaan siinaa, wuu bixi karaa. laakiin iyagoo anidu kalluumaysigu soo fixisahayn anagu ma sii dayno gaadiid kalluumaysi. gaadiidka kaargoogana waa normal routine, waa soo galaan dokumentigay noo dhiibaaneen, intay doonayaan bay joogaaneen, anchorage feeskii, port chargekii waxay bay iska bixiyaanin, dabadeedna markaas ay baxaanin. marka si malas saas u fudud yahay nidaamka dekeda. wasiir arrintan doonida iyo shaqaale Iiraaniyiin oo ku xirnaa magaalada wax xiriira ka dhaxeeya mise way kala duwan? walaalow doonida iyo afaaraheeda anigu dekeda haddaanahay wax mas-uuliyad oo iga saaray ma jirto mar haddaanan dokumentigooda hayn.